marka koowaad Ramadaan wanaagsan wariye waad mahadsan tahay anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda Khaatimo Soomaaliya iyo dhammaan shacabka reer Khaatimo aad iyo aad baan ugu diirsanay oo ugu faraxsanahay doorashada sida xorta ah xalaasha uga dhacday magaalada Cadaado muddadii la soo dhaafay bilihii ugu dambeeyay uu ka socday shirkii maamul samaynta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud arrinta gudoomiyaha waa u hambalyeynay haddana waa u hambalyeynayna baarlamaankii gudoomiyaha doortay ee shacabka reer Galgaduud iyo Mudug waa u hambalyeynayna waxaanu cambaaraynayna waxaanu ka xunnahay waxaanu ka danqanaynaa fanaanbaxyada aan kasnada wanaagsan ku dhisnayn waxaanu aad iyo aada uga xunnahay oo nasiib darro u aragnaa fanaanbaxyada ka dhacaya magaalooyinka Garoowe iyo Qardho iyo Gaalkacyo waxaanu dadka u jeedinaynaa waryaan laydin marin habaabinin dadkaas gobolada dhexe duulaan kuma aha maamulka Puntland buu idinka qaadi maayaan maamulkiina dumin maayaan waa maamul walaalkiina oo dariskiina oo soo kordhay meeshaad u hambalyeyn lahaydeen ku farxi lahaydeen inaad muraara bilaacdaan arrintaasi waa xumaan arrintaasi waa xasad arrintaasi waa keligii aan noolaado sidaa daris lagu ahaan maayo Soomaaliyana ku dhaqnaan mayso maamulkaasi waa maamul Soomaaliyeed qof kasta oo damiir Soomaaliyeed oo ku diirsaday haddii kale berina waxaa jiray sheekooyin baa meesha ka hirgelaya haye wixii ay u barteen oo beryahan la waayay baafinayaan aniga keliya aniga waxaa la arrintaa laga wantoobo mudaharaadadaasi waa mudaharaadaan sharci ahayn waa mudaharaado dadana gaara leh oo qarannimo in la helo aan rabin ay ka shaqaynayaan dadka reer Khaatimo waxay la diran yihiin dadka reer Galmudug siday u faraxsan yihiin baan u faraxsanahay waanu taageeraynaa waa la shaqaynaynaa aad iyo aadna waxaanu u sugaynaa doorashada madaxweynaha Galmudug oo dhici doonta 4 bisha July haddii Allah uu ogolaado mudane wasiir maxay kula tahay in hadda Puntland ay ku dibad baxdo amaba mucaarado maamulka cusub ee Galmudug maxaa ku qasbaya kula tahay wallahi waa arrintan anigu la yaabanahay dareenkeedana anagu aanan qabin oo aanan garan karin wax maanta walaalka oo maamul dhisay oo dariskaaga inaad ka mudaharaado wax kale fikrada aan jirin waa nasiib darro baan u arkaa waxa weeye anigu aan noolaado maamul iyo shicib kale iyo maamul yeelanayo waa tahay sida cid ay dhaqaysaa ma jirto Puntland oo bari ugu jirto walaal ugu jiro waa ka waa tahay mudane wasiir dabcan dibadbaxyadii ka dhacay Puntland meelo kamida waxaa la arkayay qaar kamida madaxda dawladda federaalka sawirradooda sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka maxaa ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid sawiradiisa looga waayay dibadbaxyadaasi maadaama hadda isaga uu hormuud u yahay dhismaha dawlad goboleedka Galmudug wariyo adiga weydiiyay kala midahay waa arrin qabyaalada oo waliba waqtigeedii qabyaalad ismaaciil waa qabyaalad waqtigeedii ka soo daahaday waa nasiib darro madaxda ixtiraam kale ee kalsoonida ummadda lagu doortay ee aan dal inqilaabin ee weliba dadaal fiican waqtigan ku jiray dalka sidii nidaamka federalismka loo wada gaarsiin lahaa in sawirradooda la gubo oo sawirradooda la caayo oo sawirradooda la fool xumeeyo iyagana waxaan leenahay inta Soomaaliya wanaag idin haysaa ka badan aan ka mid ka nahay dadkaas la khaldanay shacabka ee walaalihiina u dulqaata caqligooda kama imaanin dad siyaasadda ku shaqo leh oo wax xumeynaya dadkaas adeegsanaya shacabka reer Puntland loo xanaaqin laakiin dadka siyaasadooda hagaya waa tahay dabcan federaalka Soomaaliya wada khaldan bay ka baxeen Soomaalida maanta way wada aragtaa annaga reer Khaatimo ummadaan kaliya yaabanayn oo nagula dagaalamay maxaad noo ugu samaysanaysaa dadka nagula dagaalamay oo meel walba naga caayay alla ilaahay wixii aan ku aragnay Soomaali mala aragtaa aad baan ugu faraxsanahay sidaas ay hadda weli hungurigooda iyo hankooda inay Soomaali mas'uuliyad u qabtaan ay ku hunguriyaan aad iyo aad arrintaas nasiib darro tahay inteena kala ka midowno iyadana si waxaan wax ugu sheegno waa xubin naga mid ah kaba maarano fikradaha khaldan ee isaga digo
oo la sameeyay ku faaboon tahay aad iyo aad u maasantay wari waa tahay mudane wasiir waxaa la socotaa inay xiisada ka jirto Puntland gudaheeda oo gobolka Nugaal la isku haysto hadda xiisadaas halkee ku dambeyn kartaa bay kula tahay hadii ay sii socoto Puntland halkee hadda ku dambeyn kartaa hadii xiisadaas sii socoto wallahi Puntland walaal waxay u baahan tahay horta constitution ee Puntland waa meel burburtay maamul ahaan dastuur ahaan waa meel burbursan sababta waxa weeye waxaa lagu dhisay 5 gobol iyo deegaanka Buuhoodle 5 gobol gobolka Sanaag baa ku jiray maanta kala mid aha weliba dastuurkooda ay ku sii qoran tahay marka constitution ee meel jirta ma physically waa arkaa inay burburayso cadaalad burburayso sababtoo ah wuxuu qaanuunka ay ku dhisan yihiin haddii uu sax ahayn aqal aan sayskiisu sax ahayn dhisiisa kor sax ma ahaan karo annagu kuma wiirsanayno kuma faraxsanin in wax ka burburaan waxaan leenahay dhisma oo dhaqna laakiin xumaanta iyo burburinta iyo xasadka kale iska daaya gurigeena hagaajiya Soomaaliya la jeclaada inay wanaagsanaadaan ama dareenka ka qaba kaa weyn hoosna inaan ugu hadlo arrimaha Puntland dhexdooda oo aan weli intaas ka ogtahay inta badan ka ogayna ma jeclin waa tahay su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo waxay tahay baarlamaanka cusub ee Galmudug iyo shacabka Galmudug maxaa fariina oo halkan aad uga jeedinaysaa oo baaqa ما شاء الله وساشي وفي عيدين كان حاجة شوي ولا كان مهد علينا يا شعب كان ورانا الرجل المدوب حلقوا باقيا صومالي لما وضعوا في أصداد بيلين هاي وضعوا ويسكسوا ورمتا وضعوا ويسيكي تاوي شخيصا تاريخ وقربوا كنانت صوماليا وطنوا وضعوا كدابا الشعب كغير قلمد ينامل كوضا يبارلمان كوضا وحلقوا باقيا نبنينو سنان عدالة iyo dhibaatooyinkii hore in la ilaawo Soomaalida halka aad joogtaan aad ka raadisaan noloshaas ay noqoto guri Soomaaliyeed oo lagu soo hirto ee aanay noqon guri Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed